كنا لكردقي ما تلا نقل يعطي تنوما نولا على مسار أحمد مدوبة على الهاي ما هين على مسار أحمد مدوبة شلا waxaa meeshaas lagu caleema saaray Uhuru Kenyatta oo wakiil ka yahay aadan barre ducaale Axmed Madoobe oo duulaan ku ah beesha Mareexaan marunba in kun askari oo maleeshiyad u dhashay beesha ogaadeen inuu kalanka shanaad ka soo daabilayay maalmihii ugu dambeeyay si uu ugu weeraro beelweynta Mareexaan oo uu ka soo jeeday madaxweynihii daacadda u ahaa qaranka Soomaaliya ee abid aan soo marin wadanka burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya farmaajo ilaahay dambigiisa ha dhaafee cadowtinimada beesha Mareexaan oo u qabo Axmed Madoobe maxay tahay warbixinina baan caadi ahayn ayaan idinkaga haynaa daawadayaal balse waxaan idinka codsanaynaa inaad inagu caawisaan channelkan inaad subscribe saartaan waxba idinka dhibi mayso inagana waxay inoo tahay dhiirigelin oo saacad waliba sida subax duhur galab iyo habeenba waxaan si joogto ah u soo gelin doonaa warar xaqiiqada ku salaysan oo aan daaha kaga rogi doono hadba wixii bulshada ka qarsoon fadlan subscribe dhaho haddii channelkan aad ku cusub tahay beesha Mareexaan maxaad Kenya oo cadow ku ah Soomaaliya badda Soomaaliyana dhici rabtay u nacdeen ayuu Axmed Madoobe ku haystaa away jamaahiirtii nabad iyo nolol ee wadaniyiinta ahaa jecla wadankeena iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed si aan u ogaano dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad gumaysiga ka dhidhiya sheer aan wada dhahno muuqaalkan oo aan gaarsiino bulshooyinka Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda joogta si ay u ogaadaan khiyaanada iyo dhagarta iyo sidoo kale cadow u adeegida uu wado Axmed Madoobe dadka Soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee uu markaasi madaxweynaha u yahana uu gumaadayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waa madaxweynaha Jubbaland ee isdoortay muddo ku dhow 15 sano ayuu qori caaridiisa ku jooga Jubbaland isaga oo garab ka helaya Kenya oo ah cadowga Soomaaliya isla markaana aan ogolayn in dalka Soomaaliya uu horay u socdo ciidankeenana si weyn u dhismo dadka Soomaaliyeedna ay markaasi noqdaan kuwa barwaaqo sooran ah oo markaasi hadiyo gooraale dawladooda garab taagan intaas ayay ka xuntahay Kenya iyo xaasidnimo uu qabo farmaajo ayuu Axmed Madoobe wuxuu bilaabay inuu isku dhameeyo ama isku laayo beelaha ogaadeen iyo Mareexaan oo aan la istusi karin xilliga kani dab iyo baasiin isku ah wuxuu Jubbaland gaar ahaan magaalooyinka Kismaayo Ceelwaaq iyo tuulooyinka hoos yimaada ku soo daabulayay maalmihii ugu dambeeyay ciidamo maleeshiyad ah oo qabiil ahaan ka soo jeeda beesha ogaadeen oo laga soo daabulayo kalanka shanaad iyagoo dabaabaadkooda iyo sidoo kale hubkooda wata Kismaayo markay yimaadeen Axmed Madoobe uu hub gaar ah siiyay kuwaas oo ku doonayo inuu ku gumaado shacabka u dhashay beesha Mareexaan arrinkani waxaa maqlay odayaasha beesha arrinkani waxaa maqlay si weyn uga carooday isla markaana indhahooda laga dheehan karayay gaduud aad u daran odayaasha u dhashay beesha Mareexaan waxaana ay fariin adag oo culus u direen madaxweynaha Jubbaland ee shisheeye kalkaalka Axmed Madoobe taasi oo ku aadan inuu joojiyo dabka uu ka shiday Jubbaland ee uu ku ugaarsanayo dadka u dhashay beelweynta Mareexaan Axmed Madoobe oo si isla weyni iyo jeesjeesa ku dheehan tahay ay ku jirto ayaa odayaasha u dhashay beesha Mareexaan ku yiri 5 sano oo farmaajo villa Soomaaliya joogay biyo waa iga dagi waayeen oo hurdo fiican maladin meel waliba ayuu iga soo weeraray xitaa wuxuu isku dayay in gobolka Gado oo Jubbaland ka tirsan uu markaasi gooyo oo Mareexaan u gooyo wuuna hubeeyay beeshiisa Mareexaan oo awal aniga gacanta ayay igu jireen oo sidaan doono ayaan ka samaysanayay beelweynta Mareexaan sanka ayaan ka garaaci jiray inta soo wato ciidamada Kenya maadaama ay yihiin kuwa markaasi u hiilinaya Kenya ciidamada ay markaasi keentay Soomaaliya inkastoo Kenya ciidamadeeda nabad ilaalin ay u joogaan haddana waxa ay markaasi u muuqataa in ay yihiin kuwa markaasi cadow ku ah wadankeena Soomaaliya gaar ahaan deegaanada uu maamulo Axmed Madoobe oo isagu markaasi u saxay shidaal iyo sidoo kale waxyaabo kheyraad ah ee ku jira wadankeena in Kenya oo Afrikaan xun ah ay markaasi qaadato maadaama inaga jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Kenya aynu ku dar xilligii uu noolaa Ilaahay u naxariistay cigaal Axmed Madoobe oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri Jubbaland aniga ayaa u haraya ama Mareexaan ayaa u haraya ilo madax banaan oo ku sugan Jubbaland ayaa inoo sheegay haddii uu dhaco dagaal qabiil oo u dhaxeeya beelaha ogaadeen iyo Mareexaan in jiritaanka Jubbaland ay qatar ku jirto mas'uuliyadda colaad horintana uu qaadayo Axmed Madoobe oo loo garan og yahay shisheeye kalkaal muuqaalkan bilow ilaa dhamaad haddii nala socotay si sheer gare walaalow kiin baahagna dawladda aan baahagna أنت ما يروك أنت أسكون أو خحوته يروك يدقن أو كباسة دتيه دقن أو دولار دتيه دقن أنت أصلا ما ينباهنا إني هذا قرب كان نقط إني هذا كويت قبل كجذا لك يأرجع
oo una meelun sida una geega keenka banaan banne udan ninku kooyto una haneen hambaliyay to fadaan xasan sheekh maxamuud waa u mahadnaqaynaa waana soo dhawaynaynaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad u mahadnaqaynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aad loo yaqaan horeyna u soo noqday madaxweyne waxaan ka filaynaa madaxweynenimadiisa asagoo muxuu ahaa nin aad u soo shaqeeyey ah waa soo dhawaynaynaa aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa muxuu ahaa waana mahadsantihiin bannaanbixiina aad ku soo dhawaynaysaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan halkan ugu hambalyaynayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aan anigu qiyaasaya madaxweynaha ugu nasiibka badan inuu yahay madaxweyne waxaan kaa filaynaa adigoo ah madaxweynaha ugu waaya aragsan oo xilkan hadda uusan kuu kow ahayn oo ay kuu tahay waayo aragnimo marka waxaan kaa rajaynaynaa haddii aan nahay gobolka gedo anoo ku hadlayo afka guurtida odayaasha dhaqanka ee gobolka gedo khaas ahaan degmada doolow waxaan kaa rajaynaynaa inaad si wanaagsan noola shaqayn doonta libintunkiin dhibney xasan sheekh maxamuud walaalow kiin baahagna dawladda aan baahagna anta may roogtaa intaasoo kun oo qaxoote ya roog ya degan oo kabaasa dhatiya degan oo doolow dhatiya degan intaas dhan ma in baahagnaa inaada garabkaana nagata inaada kooyto gobolka gadalakii araga oo una meelun sida una geega keenka banaan banne udan ninku kooyto una haneenka hambaliyay to fadaan xasan sheekh maxamuud waa u mahadnaqaynaa waana soo dhawaynaynaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba u mahadnaqaynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aad loo yaqaan horeyna u soo noqday madaxweyne waxaan ka filaynaa madaxweynenimadiisa asagoo muxuu ahaa nin aad u soo shaqeeyey ah waa soo dhawaynaynaa aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa muxuu ahaa waana mahadsantihiin bannaanbixiina aad ku soo dhawaynaysaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan halkan ugu hambalyaynayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aan anigu qiyaasaya madaxweynaha ugu nasiibka badan inuu yahay madaxweyne waxaan kaa filaynaa adigoo ah madaxweynaha ugu waaya aragsan oo xilkan hadda uusan kuu kow ahayn oo ay kuu tahay waayo aragnimo marka waxaan kaa rajaynaynaa haddii aan nahay gobolka gedo anoo ku hadlayo afka guurtida odayaasha dhaqanka ee gobolka gedo khaas ahaan degmada doolow waxaan kaa rajaynaynaa inaad si wanaagsan noola shaqayn doonta libintunkiin dhibney soomaaliya ha israacdo jubbaland ha israacdo taas kadib waxaan rabaa wixii lagu sheegay shalay inay caleemasaar yihiin baan rabaa inaan afkaarteeda caddeeyo caleemasaar axmed madoobaa lalahaaya ma ahayn caleemasaar axmed madoobe shalay waxaa meeshaas lagu caleemasaaray uhuru kenyatta oos wakiil ka yahay aadan barre ducaale waxaana rabnaa caddayn inaan bixinno caddayn waan idiin caddaynayaa shalay waxaa ka soo qayb galay caleemasaarkii uhuru waxaa ka soo qayb galay golihii baarlamaanka kenya waxaa ka soo qayb galay wasaaraddii arrimaha dibadda waxaa ka soo qayb galay wasaaraddii gaashaandhigga oo jenaraalla ay yimid waad ogtihiin alxamdulilaah ilaahay baa mahad iska leh waxaa maanta meeshaan isugu soo bannaanbaxay bulshadii ku nooleed gobolka geda ee garbahaarey ayagoo ka cabanahaya qaabka loola dhaqmay oo soomaalida qabqablayaasha soomaaliyeed iyo kinyo nimanka madaxdeeda isu sheegay qaabkay ula dhaqmeen ayagoo ka xun bay isu soo baxeen axmed madoobe